الرحيم waxaan halkaan sameynayaa waxyaabaha gacmaha lagu nadiifiyo waxaan ka bilaabaynaa baking soda waxay gacmaha qofka mar walba waxa way gacmihiisa inay nadiif noqdaan baa fiican gacmuhu waa nadiif laakiin saasay tahayna waxa way wasiiq qurxinayna ma sha Allah waxaan ku bilaabayaa halkaan waxa qaadada igu jirta hal qaado baking soda qaadaan ku shubay biyuuna waa biyo qandac weeye aan ku darayaa hal qaado cusba haddana waxaan ku darayaa vinegar waxa weeye waxa la yiraahdaa biyaha khalka baa waxa la yiraahdaa vinegar noocan baan ku daray noocana ugu fiican noocana ku darsanaysaa marka gacmuhu ka dhigayaan gacmo smooth ma sha Allah kana waxaan ku daray hal qaado inta maahan qasab qaado inaa ku dartid liinta inta doontid baad ku darsan kartaa hadaa rabtana ku dhexridan kartaa xabad liin sheex liin ka wada liinta ku darsanaysaa inta marka isku dartid waa isku walaaqi liinta waa ku dhexridayaa liinta qolofteeda isaga dhexridayaa hadhow gacmaha ku nadiifinaya haddii alla idmo marka waad walaaqi si fiican ba isku walaaqi marka isku walaaqdi gacmaha dhex gashanaysaa gacmaha marka dhex gasho gacmihii baa nadiifinaysaa marka ma sha Allah mar walba asbuuci 2 jeer ama 3 jeer samayso هذا عارف دون تبع gacmaha waxay noqon doonaan biidna rahmaan gacmaha nadiifka oo noqonayaan gacmo leesha ma sha Allah gacmaha iyo lugaha labada lagu dhaqan karaa caag baad u soo gadanaysaa suuqa tagaysaa caag baad soo iibsanaysaa baaquli fiican baaquligaas baad ku shubanaysaa biyaha qandaca hal qaado cusba iyo hal qaado muxuu ahaa khalka noocaadii sheega noocaas ugu fiican iyo liin iyo waxa weeye iyo baking soda intaas ku daraysaa intaas gacmaha ku nadiifsanaysaa ma sha Allah waxaad arki doontaa gacmaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bareynaa gacmaheena iyo lugaheena iyo jirkeena inaan nadiifsano biidna rahmaan gurigaaga wax walba ku dhameystiri kartaa wax walba gurigaaga kiimika iyo waxaas isticmaali maysid anigu ku jeenayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh